yaan ugu yeeri karnaa afarxaniyood yuu yahay ninka ragga ee mutaystay in loogu yeero afarxaniyood waxaa jira wax la yiraahdo alfa male ama afarxaniyood haddaba alfa male-ku waa ninka kaliya ee sida saxda u garan kara waxa uu rabo xilliga uu rabo sida uu u rabo iyo inta uu rabo marka la soo koobo waa ninka ku guuleystay muujado nololeed oo kala duwan oo intooda badan ay aad u rafaad badnayd ugu dambeyntii waa shakhsi bilaa cabsi ah oo aad isugu kalsoon ku hubaysan fikir iyo farshaxan nololeed yaqaan waxa uu ku liito iyo waxa uu ku fiican yahay si joogto ah naftiisa u qiimeeya una daryeela naxariista hodan ku ah qaamuuskiisa kuma jirto inuu sugo fursadaha ee isaga ayaa abuurta oo cidna kagama garab tashado tilmaamahaas oo ka dhiga boqorka ugu soo jiidashada badan ee keynta haweenka dumarka oo dhammina isaga ayay ku riyoodaan oo doondoonaan like muuqaalka si mar walba ay muuqaaladeenu kuu soo gaaraan sidoo kale share ama copy link maxaa sababa in dadka qaar ay xadaan waxyaabo aad u yaryar sida jaajar catar rooseeto faraanti iyo lacag yar kleptomania waa xaalad caafimaad darro maskaxeed taas oo qofka ku keenta inuu dareemo rabitaan aan la xakamayn karin oo ah inuu waxado inaad xaddo alaab aadan guud ahaanba u baahnayn oo inta badan qiimo yar la iibiyo ayuu ku horseedaa xanuunkan soo ma aadan arag qof marka uu ku yimaado saacad yar jaajar yaroo aan qiimo badnayn catar yaroo sii dhammaanaya lacag yaroo aan naf lahayn xada u cududaar kleptomania xaaladda la yidhaahdo ayuu la ildaran yahay waayo hadduu tuug rasmiya yahay wax weyn buu xadi lahaa yeelkadeede kleptomania waa xanuun baastar ah like muuqaalka si mar walba ay muuqaaladeenu kuu soo gaaraan sidoo kale share ama copy linkiga noo taabo mahadsanid cilmu nafsigii ugu qatarsanaa ee dhanka jacaylka kow haddii aad aragto qof aad isleedahay wac ama garaac oo ku soo garaaca qofkaas waad qof aad isfahmaysaan labo haddii qof aad fariin u dirayso aad dhowr jeer tirtirto kadibna aad masaxdo haddana aad qorto oo aad masaxdo ma doonaysid qofkaasi inuu kaa tago saddex haddii telefoonka uu qof kugu jaro hal mar kadibna uu mar labaad ku soo wici waayo qofkaasi dankaama laha afar haddii qof 3 habeennimo ama 9 saac habeennimo aad u qorto kaliya waan ku jeclahay qofkaas si ballaaran ayaad qalbigiisa u degtay shan haddii qof xiriir idinka dhexeeyo mararka qaar telefoonka uu kaa dansado ama muddo uu kaa qaban waayo amaba uu kugu jaro waa qof masayrsan kaliya u dir nolosheedii kaama maarmo waa kuu baahanahay lix haddii gabar ku jecel lacag ku weydiisato taa micnaheedu ma diido xiriir kale haddii loo soo bandhigto dhanka kale adiga ayay wax kaa qaldan yihiin waxaana kugu yar adeegsiga murtida mahmaahyada sheekooyinka murtida ah waa inaad wax badan iska beddesho toddobo haddii wiilka uu xiriirka idinkala dhexeeyo hadalkiisu uu yaraado marka telefoonka ama marka aad wada joogtaan qoslina waayo wuu maseersan yahay wuxuuna ogaaday wax kugu saabsan adiga sideed marka biribeedka uu kaa go'o ama lacagta wicitaanku ay kaa dhammaato isku day inaad lambar kale ka wacdo qofka aad jeceshahay waxa uu ogaanayaa inaad tahay qofka kaliya ee laabtiisa ku jira sagaal haddii adiga oo raga aad ku riyooto qof dumara oo indhihiisa ay ku soo eegayaan waxaa dhici doona in lamaanahaaga aad ka xanaaqi doonto kuna xiisi doono haddii aad ka hesho like muuqaalka sidoo kalena share ama copy linkiga noo taabo mahadsanid